الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، waxaynu taaganahay gabagabadii bishii Ramadaan ee barakaysnayd. maxayna la gudboon Ramadaan dabadeed? arrinka koowaad ee la gudboon wuxuu yahay inaynu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisano amal wanaagsan wixii aynu sameeynay Ilaahay inuu inaga aqbalo. arrinka labaad ee la gudboonina wuxuu yahay acmaashi wanaagsaneyd ee aynu sameeynay inaanay sabab inoogu noqon inaynu nafaheena u bogno oo aynu soo aragno inaynu nahay kuwa shaqaystay oo wax fiican sameeyay. isu bogitaanku waxa uu ka mid yahay dambiyada xunxun ee sababa dambiga weyn la yiraahdo kibirka. wuxuu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qofku inuu sameeyo xumaan uu ka warwaro uu ka murugoodo ayaa Ilaahay agtiisa u dhaanta inuu sameeyo amal wanaagsan oo sabab ugu noqda inuu kibro ama bas uu isu bogo oo uu soo arkay inuu yahay mid wax fiican sameeyay darajo sarana gaadhay. ayuha almuslimuuna cibaadallah, arrinka saddexaad ee la gudboon bisha Ramadaan dabadeed wuxuu yahay inaynu go'aansanno acmaashi wanaagsaneyd aynu sameyn jirnay bisha Ramadaan inaynu halkii ka sii wadno oo aynu joogtayno. go'aanka fiicani waa bilowga camalka wanaagsan, waana arrin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala addoomihiisa ku dhiirigeliyey. faidaa cazamta fatawakkal cala allah, waana arrin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka baryi jiray. wa asaluka alcazimata cala rushd, ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan go'aan u lahaado toosnaanta hanuunka iyo khayrka. saddex arrimood si gaar ah aynu u go'aansanno inaynu halkii ka sii wadno. arrinka koowaad waxa uu yahay yaa cibaad allah soomka oo ka bilaabmaya soomka 6 shawaal ee ka dambeeya ciidda ama 6 ka mid ah bisha shawaal guud ahaan. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man saama ramadaana thumma atbacahu 6 min shawaal kaana ka siyaami dahr. qofka sooma Ramadaan dabadeedna sooma 6 ka mid ah shawaal xagga ajarka wuxuu la mid yahay qof sanadka oo dhan soomay. arrinka labaadna wuxuu yahay salaada, gaar ahaan qiyaamu leyl oo dadka in badan oo Ramadaan horteed tukan jirin Ramadaan ay ku dadaali jireen ha go'aansadaan Ramadaan dabadeedna halkii inay ka sii wadaan. arrinka saddexaadna wuxuu yahay الارتباط بالقرآن الكريم كلام رب العالمين، إنه نسيحو جنو حريركي وناكسنا إنه الله يالناي قرآن الكريم كاه وإلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة. أرن كافراد إن لقد بون رمضان دبدت، والمداومة على الأعمال الصالحة وأعماش وناكسن إنه نتشوكتينه. وفك مسلم كان مركه ربا وحال لقد بون camalada sunnaha ee farallada dheeraadka ka ah inuu sameeyo inuu joogtayn karo oo aan sabab u noqon camalkaasi inuu ka go'o. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii la weydiiyey camalkeebuu ilaahay u jecel yahay, axabu alacmaali ila allahi maa duwima calayhi wain qalla, rawaahu muslim. camal ilaahay wuxuu u jecel yahay kala joogteeyo, tira ahaan haba yaraadabe. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu wuxuu ahaa camal wanaagsan markuu bilaabo sunnaba ha noqdee inuu joogteeyo aanu goyn. qaalat caaishatu radia allahu canha fima rawaahu muslim kaana camalu nabiyi sala allahu calayhi wasalam diima, camalka nebigu wuxuu ahaa mid joogto ah. caaisha radia allahu canha iyo saxaabada kale dhaqanka wanaagsan bay rasuulka ka barteen. فلقد قال القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وعائشة رضي الله عنها يدوها كانت عائشة إذا عملت عملا لزمته. عائشة رضي الله عنها وحيها عمل وناكسر مركا السميصة
mid joogtaysa ayay ahayd. arrinka shanaad ee inala gudboon yaa cibaad allah waa inaynu ka digtoonaano inaynu raadkeenna dib u gurro oo qofkii camal wanaagsan sameeye gaar ahaan farallada ilaahay ilaaliya inuu dib uga noqdo oo qofkii xumaan iyo macaasi iyo dembiye ka toobad keenay rabadaan markay baxda inuu dib ugu noqdo. walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin. ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala dib ha u noqonina. haddaad dib u noqotaan oo khayrkii wanaaggii dib aad uga noqotaan waxaad noqonaysaan kuwa khasaaray. ilaahay wuxuu inooga digay waxa aynu ku tacabnay ee camal wanaagsan ah inaynu dib u baabiino oo wax khariba aynu ka dabageyno. qaala allahu subxaana wa tacaala walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaatha. muslimiinay hala mid noqonina gabadhii khasaartay xadhiggii ay soohday ee muddo dheer ay soo haysay ay ku daashay ee meel wanaagsan ay gaadhsiisay dib u furfurtay intay adkaysay dabadeed. ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaad ogaataan ana shahra ramadaan nuqطatu bidaayati laa nuqطatu nihaaya. bisha ramadaan waa barbilow towbadkeenka laga bilaabo iyo khayrka iyo camalka wanaagsan ma aha meel camalka iyo khayrka iyo wanaagga lagu joojiyo. falmuslimu rabbaaniyu laa ramadaani. muslimku rabbi buu subxaana wa tacaala caabudaya qalbigiisuna ku xidhan yahay. ma aha mid ramadaan camalka wanaagsan uu kaga eg yahay toosnaantiisa iyo towbadkeenkiisuna uu ku joogo maalinka bisha ramadaan ay dhammaato. aqulu qawlii hada waastagfiru llaha liya walakum. alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى الظaalimiin. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله qofka muslimkee bisha ramadaan toosnaaday camal wanaagsan oo ilaahay u dhoweeyana sameeyey towbad keenay oo xumaan iyo khalad wuxuu samayn jiray ilaahay daraaddii uga tegey in wanaaggaa halkaa ka sii wado waxyaabo ku caawinaya baa jira. waxyaabahaasi waxaa ka tawakulu cala allah ilaahay inuu tala saarto oo awooddiisa iyo xeeladiisa aanu isku hadlayn. falaa xawla lana walaa quwata ila billah. awood iyo xeelo toona ma lihin ilaahay kaalmadiisa inaynu helno mooyaane. waxaa ka mida inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala oo weydiista ilaahay inuu ugu kaalmeeyo joogtaynta camalka wanaagsan. faqad qaala nabiyuna fima rawaahu muslimu can abi hurayra ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah. wixii nafciya waxtarkuula ku dadaal awooddaada iyo xeeladaadana ha isku hadlayn ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo weydiiso. waqad callama الnabiyu mucaada an yaquula dubura kuli salaaة allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik. wuxuu rasuulku baray mucaad ibnu jabal salaad kasta dabadeed inuu yidhaahdo ilaah waxaad igu kaalmaysaa xuskaaga iyo mahadnaqaaga iyo cibaado wanaag aan adiga kuula imaado. waxaa ka mida yaa cibaad allah addoonku inuu farabadiyo dikriga ilaahay. faalikhaaru min dikri اllah acdamu muciinin calaa saa'iri اlcibaadaat. ilaahay xuskiisa oo aada farabadisaa waa shayga ugu weyn ee kugu caawin kara cibaadaadka kale. waxaa nebiga u yimi nin waxa uu rasuula ku uhi yaa rasuul allah ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calaya. rasuulka ilaahayow sharaa'icdii islaamka iyo acmaashii way igu fara badatay fadullanii calaa amrin atashabathu bihi. waxaad i tustaa arrin aan ku dhago aan si fiican u qabsado oo bimacnaa acmaashaasi inay ii fududaato sababa. qaala calayhi الsalaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah. ma doonaysaa acmaashoo dham inay kuu fududaato carabkaagu yaanu ka suulin ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisu inuu ka qoyanaado. waxaa ka mida aljaliisu الsaalix dadka wan wanaagsan inaad la saaxiibto khayrka ku xusuusinaya kuu sheegaya tusaale kuugu noqonaya oo aad kaga dayanayso xaggiisana kuu jiidaya. ayuha almuslimuuna cibaad allah adduu zakaata fitrikum.
سكدا سكاة الفطر قال يراه إلى هيد كواجبية بحية فقد فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نبي محمد وحفر لي زكاة الفطر ضوء الصاع وأفر مد وإلا 6 كيلو راشين كعلوس 2 كيلو يبد هدو فدود يا ميزانك وكفدود إلا 6 كيلو قارسي وحو كفر لي قف كستو مسلمة حرى الدونة قف وين قف يرى رجا والضمرة إنه مسلم يهاي وبشرضية هاي استنا وحدة يراد كا مالك يهبين كا عيد إسقى يعيد مصروف كود كواتشبي وحي عوني لهاين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول نفط هذا كبيرو كدي من واحد كحك سيسا عيد مصروف كود كواتشبي سكدا وحل سيريا الفقراء والمساكين فقد قال عبد الله بن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رسولك لا يحفر إلى زكاة الفطر ده سيأي وقلنا قطو ظاهر لقد ظاهرية اللغو يخلد وحي كدعي قفك صومي سيأي قودين وقلنا قطو ذاتك مساكين تعاه كوان وحبهين أما وحي هيان آنو باهدو دا أساسي ميل كدعاهين أما ميل بو كدعايا لكن ما ود الدبوليو. أيها المسلمون عباد الله زكاة الفطر ذا قارسية ضدك إلهي سبحانه وتعالى وواجبيه حقه ذو كدقي انتان صلاة عيد أيضا تكن فقد قال عبد الله بن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى رسولك وحامرك بحيه إلا بحيه انتان ضدك بحن هلك عيد كتكنيا. وقال عليه الصلاة والسلام فمن أداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة زكاة مقبولة قفك بحية صلاة عيد هرتين وسكلك أقبل أيه ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صلاة عيد الدبل قفك بحية والصدقة والصدقوين كميدون صلاة عيد الدبل هدو بحية هدا صلاة عيد هرتين دانو بحين كدعي ميسو لكن أهل العلم قال إن كميدي وحيلين قلي نقونيسا وعباد وقت قادر دعضي نقون ميسو. أيها المسلمون عباد الله صلوا صلاة العيد في بيوتكم كما أمركم بذلك ولي أمركم كنتوا كذا صلاة عيد قريهين سيدا مسلمين تايدين تليا إذن أمرين يدو ليك يددك مصلحة دود يدن تود علماء الإسلام نوحي لهذا صلاة العيد قفك يساقوا كليدية يساقوا جماعة يساقوا حرية يساقوا الدونة يساقوا الرقية يساقوا الضمربة قريقا هدو كنتو كذوي كغان صحيسا. وقد فعل ذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين سيدا وحيا لي ددكي هوري ونكسنا صحابة سيدا أنس بن مالك وكالي سيدا سوكالي إن بدن وكميدا تابعينتي هدي قريقا دد جمعي أي شوغان إن جماعة لو تكدا يافي عن سي فضيلة دي جماعة الله له صلاة دا قريقا لقو تكريا ما دام آني تشرين صلاة إمام وكهر ريسي قال نقون ميسو وإنما تكون أداء وحي نقون إساء الصلاة وقت قيدي دعضي أحكام تتاكرت ميسان وحاكم إذا قفكو هدو كاليدي هاي خطبة دين مايو وهي قف كاليدي سما خطبة دين في الإسلام حديثة جماعيين خطبة دي عيدنا وإلا إيمانيان والسنة إلى إليه مادان ومتكميد وآخره ما دام خطبتك لو كهر ريسي وإمام المسلمين في البلد وخطبة دي أما عدة نائبك كايا هوشاس وحل صارتياني تشيرين مركان إلا خطبة دي أنا والسنة وجماعة قرية كنت كتا متكميد وحويان وخطبة دي ما دام أنا يقلاهين وصلاة داسي أدائي تاي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم نجنا من هذا الوباء واحفظنا واحفظ المسلمين من أذى وضرر هذا الوباء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ما جنت أيدينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.